sheekadii adduun yahow aniga ima rabtid iyo afar nasiib darro waxaa la yidhi hadda ka hor waxaa jiray nin lagu magacaabi jiray cagafaras oo ahaa reer guuraa ku nool kaymaha Soomaaliya isaga iyo qoyskiisuba. cagafaras wuxuu ahaa nin oday ah oo aabba maalin maalmaha ka mid ah buu xaaskiisii iyo carruurtu aabbaha u ahaa buu wuxuu ku yidhi saaka waan safrayaa reerka safarkiibaa ka go'ay marka waxaan inoo doonayaa raashinka iyo alaabaha ina ka go'ay. xaaskii iyo carruurtii oo warkaa ku farxay baa markaas ugu jawaabay haye allah ku nabad keeno. kadibna ninkii cagafaras ahaa oo nin dheereeya lagu aqoon jiray wuxuu gurigii kala soo ambabaxay 5 neef oo ari ah oo uu rabay inuu magaalada u iibgeeyo iyo ratigu alaabta ku soo qaadan lahaa. kadibna cagafaras wuxuu soo aaday magaaladii oo wuxuu soo maray waddan badan oo cidlo ah isagoo awrkiina hogaaminaya arigiina dabada ka wada. muddo kadibna wuxuu soo gaaray cagafaras magaaladii. markaas buu meel magaalada koonaheeda inta ratigii geed ku xirtay arigii magaalada u kaxeeyey si uu suuqa uga soo gato. balse nasiib darro hadduu arigii magaaladii geeyey oo suuqa dhex taagay waa laga iibsan waayey. haddana waa nasiib darro kale intuu ariga warwareejinayay ratigii ayaa inta geedkii isku marmaray ku baktiyey oo halkaas ku dhintay. waayidan ilaahe ilaa isagu war uma hayn ratigii inuu baktiyey intuu arigii magaalada uga soo dhex tegay buu wuxuu damcay inuu ratiga geedka ka soo furto ilaa waatuu ninka dheereeya ahaaye. markuu soo orday oo isi soo dultaagay geedkuu ratiga ku xiray mise ratigii waa dhintay oo waa bakti oo nafiba kuma soo dhowaan. inta aad iyo aad u naxay buu wuxuu is yidhi ratigaani ku dhaaf oo amar allaah u yimiya arigaagii doono. balse waa nasiib darro labaad ama saddexaade meeshii buu yimi mise arigii 5 neef midba kama joogo oo waa cidlo waa maran tahay. aad iyo aad ayuu u naxay ninkii cagafaras ahaa arrinkiisana wuxuu u sheegay waxgaradkii magaalada joogay oo dhan. markaas baa waxgaradkii magaalada waxay ku taliyeen ninkan in la siiyo raashin maadaama ay ku dhacday arrin naxdin leh dameer ammaanaan ah la siiyo oo uu raashinka ku qaato. kadibna sidii baa la yeelay oo dameerkii ayaa raashinkii loogu raray oo waxaa la yidhi dameerkaa markaa raashinka gurigaagii ku geysatid soo celi. isaguna wuxuu yidhi haye iyo hawraarsan oo isagoo ku faraxsan sida loogu gurmaday ayuu magaaladii ka carraabay goor qorraxdu sii dhacayso ama gabalku gaabtay. balse waa nasiib darro mid saddexaad ama afraade isagoo xilli habeena jidka sii socda oo dameerkii raashinkii ku wata ayaa waxa weeraray 10 waraabe. halkaas bay dameerkii kaga cuneen raashinkiina kaga dilaaciyeen oo ciidda kaga dareen. ninkii cagafaras ahaa isagoo gacmo maran hadduu habeenkii cidlo joogay subaxdii wuxuu iska soo aaday docda gurigiisa. kadibna wuxuu soo maray